ciidanka hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed waxay fashiliyeen ugu yaraan 2 qarax oo la doonayay mid ka mid ah in lagu weeraro goobaha ay dadku ku qaxweeyaan magaalada Muqdisho iyo mid la doonayay in lagu qaarijiyo muwaadin gaarigiisa wato shacaba. qaraxa koowaad oo ahaa gaari noociisu yahay Kaarib lagana soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa waxa ay ciidanka Niza ka warheleen xalay in la doonayo in lagu qarxiyo mid ka mid ah goobaha ay dadku xilliga subaxa hore ku qaxweeyaan, waxaana muwaadiniin Soomaaliyeed ay ku soo wargeliyeen ciidanka sirdoonka nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed qorshaha ku aadan gaarigan. kadibna waxay Niza ilaa iyo xalay ka shaqeynaysay sidii gaarigan loo fashilin lahaa loona qaban lahaa. waxay ku baxeen ciidamo si gaar ah u tababaran oo Niza ka tirsan jihooyin kala duwan oo ka mid ah magaalada Muqdisho, waxaana ugu dambeyntii gaarigani oo marayay meel ku dhow gurigii uu deganaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan ay ka warheleen ciidanka Niza. dabeetana waxa ay ka xireen jidadka dhowr jiho. ha yeeshee maleeshiyaadkii argagixisada ah ee gaarigaasi watay ayaa markiiba goobtaasi kaga degay, halkaasna kaga cararay gaariga. waxaa gaarigani saarnaa walxo ay ka mid yihiin suujino la doonayay marka uu qaraxu dhaco inay holac dhaliso. sidoo kale waxaa gaariga saarnaa walxa baaruud ah kuwaas oo la doonaya iyana inay noqdaan walxaha kaaba qaraxa. waxyaabaa kale gaarigan saarnaa waxaa ka mid ah boolasha iskaraabka ah ee baabuurta loo isticmaalo kuwaas oo laga soo buuxiyey gaariga iyo biro shuba oo la doonayay marka uu qaraxu dhaco inay firdhadaan laayaana dadka Soomaaliyeed. waxaa qayb ka ahaa waxyaabaha saarnaa gaarigan bamgacmeedyo ay ka mid yihiin bambooyinka qaraxa dhaliya F1ka loo yaqaano iyo sidoo kale bambooyinka qiiqa oo iyagana la aaminsan yahay inay ugu talagaleen inay kaabaan qaraxa. waxaa sidoo kale gaarigani saarnaa laabtoob isagana la aaminsan yahay ka hor inta uusan qaraxu dhicin inay doonayeen inay ku qarxiyaan goobta lagu shaaxeynayo kadibna uu gaariga qaraxa yimaado. waxaa sidoo kale gaarigani saarnaa ilaa iyo 3 qori oo noocoodu yahay AK-47 kuwaas oo la rumaysan yahay inay isticmaali lahaayeen maleeshiyaadka doonaya marka uu qaraxu dhaco kadib dadka qaraxa ka badbaada inay dhammaystiraan oo halkaa ku laayaan. gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Axmed Salaad Ibraahim ayaa soo gaaray goobta ay qaraxa gaariga ka furfureen ciidanka Niza. kadibna waxa uu warbaahinta qaranka warbixin kooban ka siiyay qaraxaasi ay fashiliyeen ciidanka Niza. halkan waxaad u jeedaa waxa maanta Ilaahay fadligiisa lagu qabtay waa gaari qarax ah iyo hubkii lagu hawlgali lahaa. koleytaba waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada nabad sugidda oo runtii shaqadaas qabtay iyo shacabkii la shaqeynaya informationka siiyay. waa gaari Kaarib ah oo ay saaran yihiin qarax iyo qoriyihii lagu hawlgali lahaa markii koleytaba qaraxaas uu qarxo. marka Ilaah baan uga mahadcelinaynaa naga badbaadiyey, ummadda muslimka ah oo dhan ka badbaadiyey. howlgalka lagu soo qabtay gaarigani oo xalay isaga kala gooshay xaafado ku yaala magaalada Muqdisho si ay ugu yaraan u qaldaan ciidanka ammaanka ayaa waxaa hogaaminaya taliyaha Niza General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare oo isagu taagnaa goobta gaarigani qaraxa lagu qabtay. waxaana taliyaha oo ay la shaqeynayaan saraakiisha Niza ay xalay oo dhan ka shaqeynayeen sidii gaarigani looga badbaadin lahaa shacabka Soomaaliyeed iyo khasaaraha uu geysanayo. waxayna ku guuleysteen ciidanka Niza iyo taliyahooda in gaarigan oo aan wax qaraxa dhalin laga furfuro qaraxii. cutubyo ka tirsan miinisayaasha Niza ayaa naftooda u huray gaarigan qaraxa laga soo buuxiyey inay hoos galaan furfuraanna qaraxa lagu soo xiray. gaarigani qaraxa waxaa laga soo buuxiyey qaybta dambe ee gaariga, halka sidoo kalena dhashkabarka gaariga iyo qaybta mukeefka iyana laga soo buuxiyey qarax kale. sidaasi la mid ah muwaadin Soomaaliyeed oo saaka isaguna gurigiisa si nabada uga soo kacay ayay xalay maleeshiya ka tirsan ugu si dhagara ugu xireen gaarigiisa qarax. muwaadinkani oo ah nin odaya oo qaba dhiikar iyo sonkor doonayana inuu ku soo aalamiiteeyo degaandega sayidka ayaa waxay ciidanka Niza ku qabteen kontarool ku yaala sayidka, kadibna waxay ku amreen inuu gaarigiisa ka soo dego. markii ay arkeen gaariga waxa ku xiran
kadibna muwaadinkaasi markii gaarigiisa laga soo dejiyey ciidanka nisa markiiba waxay wargeliyeen cutubyada gaarka u qaabilsan miinooyinka inay goobta soo gaaraan kana furfuraan gaarigaasi qaraxa markiibana goobta waxaa yimid cutubyo si gaara u tababaran oo ka tirsan miinistayaasha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo gaarigaasi muwaadinka u watay ka furfuray qaraxa askariga istaajiyay gaarigaasi muwaadinkaasina ku wargeliyay inuu ka dego gaarigiisa oo askari ka tirsan ciidanka waran ee nisa ayaan kula kulmay sayidka markii gaarigaasi qaraxa laga furay kadib waxaana weydiiyay bal waxa uu ku arkay gaarigan iyo waxa uu ku istaajiyay saakay waxaan aragnay xilli 9 saac oo habeenimo halkan ka howlgalnay gaari dheynaan ku qabanay gaari dheynaa kadib aduu saakay markii uu 12 ay ku dhacday iyo 20 daqiiqo ay tahay nuska aroornimo iyo gaarigan soo wada dabka xageed ka yimid oo jeerada la soo galay halkaas markuu soo marayna qori waan ku qabanay uu soo taraaraxay wiil halkaan soo gaaray laba askari oo kale ay la joogtay oo dhinaca ka taagnayd anna hortiisa taagnaa aduu oo wataan aragnay gaari adeer joojandiri waa la baarayaa meesha howlgal baa ka socda odaygi wuxuu yiri adeer gaarigii waa caadi wax laga baarana ma lahan sida ayadan odayga aan daaqada uga furnay daaqada markaan ka furaynay yaan aan maqalnay wiishka saa markaan maqalnayna waxaan aragnay hoos baan u fiirshay qalab yar oo ku dhagan baan arkay Cabdi Casiis okay waan saddex nin waan ka kala boodnay gaar baan uga istaagnay waxaan niri odayga adeer gaari ka soo baxay waxa kuugu xiran hadii aad ku ogtahay hadii kale waan soo raadsanayna odayga yar naxsan baa gaari ka soo dagay wuxuu yiraahday waxaan ku ogaa malahan kadib wixii baan sii xaqiijiyay waxaan arkay inay bukus ay wax ku xireen uu yahay sida darteed baan odaygina uga fogeynay inta baarnay baan odaygina darbigaas geynay siidka taliyaha saldhigga booliska degmada Hodan gaashaanle Daahir Xuseen Afrax ayaa isaguna sharaxaya doorka ay boolisku dhinacooda ka ciyaareen gaarigaasi sidii qaraxaasi looga furi lahaa sida ku muuqata oo waxa loogu xidho jiray dad ka tirsan dawladda ama xariir dhow la leh laakiin hadda baashay way kudutay nimanka ugu sleeya waa sii badiyeen waxaana u badiyeen oo shacabkii inay wax ka gaarsiiyaan nin aan waxba ka galabsan dawlad ahayn shacaba shaqaysta in gaarigiisii lagu xiro taas waxay kula muuqataa tabardarrida ay soo dhigayaan muwaadinka gaarigiisa qaraxa loogu xiray oo ka muuqday argagax xooggan ayaa markii gaarigiisa laga furay qaraxa kadib ay u ogolaadeen ciidanku inuu la wareego gaarigiisa si nabadana uu ku kaxaysto intuusan muwaadinkaasi goobta ka dhaqaaqin ayaan bal ka waraystay waxa uu dareemay markii uu arkay saaka ciidamo Soomaaliyeed oo ka badbaadinaya naftiisa in la qaarajiyo iyo kuwa doonaya inay isaga qaarajiyaan farqiga ay u kala leeyihiin noloshiisa nina inuu dilu rabay nina inuu baadi u taagno aydan meesha waqti asciina soo bixi habeen dhalinyaro yar wala niman dhalinyaro wala ilaahay ka sugoona ilaahay ummadda ayagana mar labaadna ayaga ma gaar u galnay ciidanka marka maxaa dareentay waxaan dareemay waxa waaye in dawladda waxa waaye ay hawl weyn ku jirtaa dareemay taliyaha nisa jenaraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare ayaa muwaadinkaasi oo argagax badan uu ka muuqday ku qanciyay inuu istajiyo isla markaana qadarta noloshiisa uu hayo alla oo kaliya uuna u istaago sidoo ugala shaqayn lahaa ciidamada ammaanka in laga hortago argagixisada falalka noocan oo kale ku kacaya qaraxyadani xalay iyo saaka la fashiliyay ayaa noqonaya isugeyntooda laba qarax kuwaas oo la doonayay dhammaantood inay noqdaan kuwa saaka magaalada Muqdisho dadku ay kula waabariisaan iyaga oo daadiye dhiig muwaadiniin Soomaaliyeed laakiin ciidamada hay'adaha ammaanka ayaa fashiliyay dhammaan qaraxyadani Cabdi Casiis Afrika SNTV Muqdisho